aad ku xilileed kabacdi maskaxaad waxaad ujeedinaysaa xalkaa waxa weyn qalad baa isagana samayn doonta. qaladka aad samayso laba shay mid baa samaynaysaa, waa inaad qaladkaaga ka barato iyo inaad ka barato qof cusub oo ku baray ama hortaa usii maray aad ka qaadan karayso experience. Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawow podcastiga shaxda guusha. Podcastigan waxa uu kusoo gudbiyaa khubaro kuwaas oo usoo bandhigaya systemkii ay mareen iyo sababii u sababeeyey iyo sida qofka hadda inuu bilaabo rabo halkaasoo kale uu gaari lahaa. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay anaad ku xidhan tahay podcastiga. maanta barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa waa maxay sirta ku dhex jirta qalin qoriga iyo sideen uga faa'iidaysan karaynaa, sidee kale nolosheena ugu dabiqi karaynaa. ma jira tusaalayaal hanu qaadan doono kaasaad qalin qorigu waxa weeyaan waa qalin qoraalka isticmaalaysa. si aad u isticmaasho waxaad u baahan tahay inaad qorto qoritaanka xanuun bal ka hor hadduu qof noqon lahaa ood qorayso xanuunka intuu dareemi lahaa waxa weeyaan si uu xanuunka u maro uu qoro wuxuu baahan yahay inaad qorto. kabacdi marka aad qorto shayga ku xiga waxa weeye inaad isticmaasho, waa inaad qoraalkiisa isticmaali karayso. marka aad qorayso qalad baad samayn karaysaa. qaladkaa samayso wuxuu leeyahay masaxaad lagu masixi karay noloshaada caadiga ba labada tusaale kusoo qaado. afar baan soo qaadan doona. waxaad u baahan tahay dhib ama mushkilad ku haysata inaad xaliso. mushkiladaas waxay kuu sababaysaa in aad go-aansato inaad wax bilowdo. go-aanka markaad xanuunkaa marto waxaad bilaabaysaa shay cusub. shaygaa aad bilaabayso qalad baad samayn karaysaa. qaladkaa samaysay waa saxaysaa kabacdina hore baad usii soconaysaa. ta labaad waxa weeyaan had dhib kastoo ku haysata wax kastoo ku haysata laga yaabaa financial ay dhib ka haysato xagga maalka, in waxbarasho ay ka haysato, inaad family dhisayso, inaad ubad leedahay, inaad ubadna samaysan rabto, inaad qoys samaysan rabto. waxaasoo dhan waa mushkilad weeyaan, waa xanuun weeyaan. mushkiladaha haddaba seed uga gudbi karaysaa waa inaad go-aansato in aad bedeli karayso. bedilaada waxay noqonaysaa qaybtii labaad baad galaysaa in aad qoraalkeygii isticmaasho, in aad bilowdo sidii aad ka bedeli lahayd, aad raacayso wadadii aad ku xili lahayd. kabacdi maskaxaad waxaad ujeedinaysaa xalkaa waxa weyn qalad baa isagana samayn doonta. qaladka aad samayso laba shay mid baa samaynaysaa, waa inaad qaladkaaga ka barato iyo inaad ka barato qof cusub oo ku baray ama hortaa usii maray aad ka qaadan karayso experience-ga. podcastigana dadkaasoo kale kugu soo casumi doona. saddexaad waxay noqonaysaa qaladka aad samayso qalin qorigu waxa uu leeyahay masaxaad lagu masixi karay. qalin biirku ma laha mar haddaad qalado waad qalada, laakiin qalin qoriga waad masixi karaysaa, dib baad u sixi karaysaa. sida yaraantii oo kale ma xasuusanaysaa markaad dhiganaysay sa wax loo qoro ama baataajada markaad baranaysay baad imse jeer baad ku celisay, imse jeer baad kari lahayd inaad liinka dhexdeeda mariso, in aad liinka buuqa qolkooga aad mar hoos sameynaysay, mar qalluucinaysay, mar aad qalluucinaysay. laakiin celcelis badanood ku celcelisay waxaad gaadhay inaad qori karayso eray, inaad sentence qori karayso, inaad qoraal qori karayso, inaad akhriyi karayso, adoo intaa isku hayn wax qori karayso. tobabaana waxaa keentay waa ku celceliskii iyo inaad ku celcelisay. waana sababta markaa iskoolka aan dhiganayno qalin qorigaan ugu bilaabayna, sababtoo qaladka aad samayso kama dhigno wixii baad joojisay, laakiin waad baranaysaa. kabacdi wixii markaad barato baad dib baad u saxaysaa. wuxuuna leeyahay masaxaati noloshuna waa saas oo kale. qalad baad samaynaysaa, qaladkaas wax ka baranaysaa, hore baad usii soconaysaa. ta saddexaad ee murtida aad kugu weyn waxa weeyaan waa inaad bilaabi karayso. haddii aanad qalin qoriga aanaad bilaabin intiibu taagnaan doonaa, laakiin marka aad bilowdo qoraalka bilowdo uu dhammaan doonaa. sidoo kale nolosha markaad wax bilowdo qaybta aad ku guuleysan doontaa. haddii aad qaybta rabto waxaad u baahan tahay sidoo kale inaad xanuun marto, inaad bay marto, inaad dhib marto, inaad wax cusub aad bilowdo. qalin qorigana sida dib loogu qorayo si aad u sii wado qoraalkiisii. adigana noloshaas saasoo kale aad u baahan tahay inaad dib isku qorto, inaad dib isku jidiso, inaad qorshe cusub diyaarsato si aad negasi level u gaadho, inaad darajada labaad usii gaadho. taana laakiin marka way ka fududaanaysaa tii koobaad sababtoo experience baad leedahay. afraad ee ugu dambeysa waxa weeyaan qalinku inuu qoro halkay ku jirtaa murtidiisu. wax maxaa looga daadinaya inta sare, sababtoo inta ugu muhiimsan waa inta gudaha ku dhex jirta. intaasaa wax qoraysa, intaasaa kolla qala samaynaysa, kolla saxaysa. qof kasta adiga daawanaya, aniga qof walbaaba wuxuu leeyahay talent wax adig kuu gaara oo qof kaloo shakhsiya lahayn taana adigu ku dhex qarsan yahay. adiguna waxaad heli karaysaa marka aad marto kuleylka, marka aad marto banka, marka aad marto dhibta, marka aad mushkiladaha ku haysta inaad xalisa rabto. kuwaasoo dhan waxay kuu sababeynayaan waxa gudaha kugu jira inaad soo saarto. waxa gudaha kugu jirna keliya waxaad ku qaadaysaa waa inaad co action samayso, inaad qalad samayso ood ka barato, iyo inaad ficilkii samayso ood kolba is cusboonaysiinayso. podcastigana waxaa loogu talagalay in dadka saasoo kale lagu soo casuumo. waana sababta aan u qaadanay shaxda guusha. dadkan guulka gaadhay ama dad meesha aad adigu u socoto jooga hadda say u gaadheen, maxaa u sababay? waxay kuu sababaysaa waqti hadday iyaga 10 sano ka qaadatay ama 5 sano ka qaadatay inaad adigu waqti kooban ku hesho, inaad bilo ku barato, inaad 6 bilood ku barato, inaad 1 sano ku barato. dadka aan dhammaan kusoo casuumi doono podcastigeenna waxay noqon doonaa dad nolosha meel ka taabtay, dad xafsiyadoodii ka dhaliyay, dad darajadii kale ee ku xigtay usii gudbaya si aad adiguna darajadooda uga faa'iidaysato. haddii aaba sii gaadhina sidoo kale waxaad noqon doontaa dadkaan kusoo casuumi doono, dadka u faa'iideyn doona ee bulshadooda la qaybsami doona. wuxuuna noqon doonaa podcast dhalinyar badan oo hal abuura soo saari, focuskiisu uu noqdo dhalinyarta si loo soo saari karaya, sidee maankaaga loo dhisi karaya, sidee hal abuurnimada iyo
iyo ganacsiga guul looga gaari karaya. Idaysato khibradan soo casumi doona iyo sidoo kale talooyinka iyo tusaalooyinkan kula qaybtamid waxaad kala socon karaysaa baraha bulshada Instagramka, YouTubeka iyo sidoo kale podcastiga. Ku xidhno halkaas ood ka baran doonto dadka ku xidhi doonto usbuuc kasta waxaan soo wareysan doonaa qof ku fududeynaya wadadan ama guul ka gaadhay oo isagu shaxdan sii maray adigana ku fududeyn doona. waana muhiimadeena ay shaxda guusha noqonaysa seed ku gaadhay iyo sidoo ku sameeyay adigana waqti kooban aad ku soo sameyn doonto guul badan baan ku rajeynayaa. aad baan salaamay.